كلنتي وعنا ونكسن داوديال وولكن سخاودين السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي بقى مهله ما أنت مركلة مرسدحات مر أفراد مرشلات مر لحال إن كل سيء هو ذا ملول بقى الدنيا جوتان وسلامته سلامتي إسلامك كسر هذا برنامج هذا قيمها بدنا نقطة رجلي بلشدنا إن داونا يسا هذه إن داونا يا هذه أنا بقول صوتها مركي كوادة تهاي فضلنا نوعاوي سبسكرايب لايك شير قد ما صنت وأنا جاي عندك الصوماليين أين أنا هين تتقعد على سمة الحاسدة أنت كبعدي وحرمنا إن بدنا برنامج كنا قيمها إقايها له أو نقطة رجلي بلشدنا ما أنت صدقتين برنامج كلا دوم بينك هذا برنامج هذا سمحيه وقوادك بلشدة أنفعية لرجل أنت بلشدة عافماتك كريبيست ضدك حماها فرست وناك انت نقول رحسنو الله يشيك هنا الله وهدي عاد وناك جعشها وان كان حالي نبي الله محمد دينتنا السبن عن قال وما ستح محرر ما تنك هذا قاد سيدتك يقانين بالود والله إن قفك بني آدم كقفر بني آدم بالود لي أنا بالود بان لا يكبر بان يا وجه محسدا في شكل لي دتك يقانا يداون أينا كبر عيار ويقرنا قلب كلبات بالود كروح حاجرتو دتكو أي لعق يمسكح أهان يجر أهان أي أباب أم بأجره وخات كإسياك ولا ليا ولو أن قار كذي دون برنامج كلا لعبة بريها ولا شيء قاتكو ومحي ومندورية قرآن كان إلهي وكذا شيء وكذا هاللي مندورية وحرانية هاي خاتكو ووحى قفك مسكح دي سبدله dadku marmarsiyo u sameeyaan waxba lagu qabtaa waxba lagu diyaariyaa no khaadku dhibaatada uu leeyahay markaan idin sheegno kasako diinteenu maxay ka qabtaa waa shay xaraana salaadu marka inta khaadka cunayso bal ka waran taasna culimadana si fiican weydiin doona marka qofku khaadka cunayo uu qaylilayo dadka khaadka uu qaylilayo waxaan inaan sameyno khaadku dhibaatada ugu badan ee bulshada uu keenay inay ka mid tahay inuu maskaxdaada doori hurdo la'aan raganimo xumo ma fahanti qofku waxa hurdada u diiday ma wanaag ba waa ma iswaaj ma tahay walaalayaal marka waxaan rabnaa inaan dadka u sheegno dadka khaadka cuna iyagoo dhalinyaro ah bilaaba muddo sano cuna waxay u nugul yihiin dhiikar iyo macaan iyo inay fadhiistaan xubnaha jirkiisa ugu qaalisan sida kiliyaha beerka haddaba dadka sigaarka iyo qaadka isku cuna soo jeeda in badan sameeya waxay ugu dambeyn ku dhaca hypertension dhiikarkaasoo inta badan loo yaqaano pulmonary hypertension midka wadnaha ku dhaca haddii wadnuhu saameyn ku yeeshana xididada ayuu inta badan adkaya xididadiiba adkaanaya markay adkaadaan dhiiggii dhex maraya xididada ayaanan waxayna helaynin yani inay kala baxaan xididada dilation wax loo yaqaan ay sameeyaan dabadeed qofkii maxaa u nuglaanaya inuu ku dhaco stroke valley dhiig baa maskaxda kaga furan u fiirso dadka valleygu uu ku dhaco waa dad badlool leh inta badan walaalayaal maxaa rabnaa marka inaan idinka codsano khaadka dhibaatadiisana bulshada kaga tegno dhaqaale ahaan iyo magaranaysaa iyo maskax ahaan war dadkan walwaalan aad arkaysaan monster u fiirsada magaalooyin badan baan ana arkay aan tegay baa jirta dadka walwaalan ee dharka tuurtay waa dad qaad magaalada iminka aad arkaysaan hargeysa waxaad arkaysaa dad badan oo khaadku u waalay khaadku waa libuu keenaya khaadku wuxuu keenayaa dimishi wax loo yaqaano asaasa ilowsho qaadku wuxuu keenayaa raganimo xumo in qofku yani waajibkii lagu lahaa familkiisu gudan waayo waxyaaba familkii burburiya ka mid ninka qaadka cuna caruurtiisa ma daryeelo way foolxun yihiin caruurta kale way ka foolxun yihiin xagga dhar ahaan uma iibinayo wixii lacagta ku bixin lahayd ma samaynayo iskuulkii baa drop out laga soo celiyay ma ka bixinayo fiigii may fadhalkayga sida daraaddeed waxaan rabnaa marka ayada walaalayaal inaan maanta idin xaqiijino dhibaato fara badan oo qaadka leeyahay qaadku wuxuu keenaa cumro degdeg quicks in qofka calaamadihii gabowga laga arko coorcoor lagu arko laalaab lagu arko dadku la mid ma noqonayo waa fantaan maynaa qaadka waxyaabaha u keenaa waa macaankana wuu keenaa hidhikarkana wuu keenaa haddaad qabtana kaba sii daranba waaba ayagiyo ma garanaysaa sii dadajisay noqonaysaa walaalayaal ummadeena oo dogtiin bulsho badan dhibaato badan buu ku hayaa qaadka wadamo fara badan baa lacag inooga qaata وحتى أنا وأودي ويني خات كأنك جبت لنا شيء العقبة إنك جبت لنا
waxaad adigu xitaa kuu soo baxo hadday noqoto khudrad hadday noqoto galley hadday noqoto wax alla waxay kuu soo baxtaa inaad ku bedelid lacag dollar baad siinaysaa maalin kasta midis marka waxay ka dhigan tahay ragga qaadka cunaaya haddayba garteen inay cawska lacag ka bixiyaan caws bay cunayaan ileene hadday garteen inuu qaadka ka bixiyaan yaa walaalayaal yaa walba waxaa habboon inaan lacagta reebno wax kale ku bedelano oo markaa wax kale ku bedelano waxaa la dadka oraahman meel ka akhriyo waan raali gelinaya dadka angaarka qaadka dadka cuna waxaa la dhowr qodob bay kala sameeyeen dadka inta kale kow dadka qaadka cuna gaalada waxay kala sameeyeen salaad la'aanta kow qaadka dadka cuna qodobka labaad waxay kaga sameeyeen dumarka xaqiisa markii la dhaxanta dad bay maanta dhan cunaya saddex dadka qaadka cuna waxay dadka kala sameeyeen xoolihii baa daaqaya sida ariga rida cawska haddii loo dhigo sooma cunayso way cunaysaa asagana waa caws wax intaa leeg baa inta lasoo aqriga uu fadhinaya 12 saacadood 14 saacadood 15 saacadood uu fadhinaya marka maskaxda siday u ogolaatay qof bini aadana inuu fadhiyo meel hal gooba saacad in kay badan 17 saacadood wax suurtagal walaalayaal inoo sheega walaalaha muslimiinta ee nadaawanaya waxaan rabnaa waa inta muslim dadka wanaagga jecel nadaawanaya waxaan rabnaa video waan inaad share gareysaan oo gaarsiisaan walaalihiina Soomaaliyeed maadaama aan rabno inay gaadho dhibaatada qaad ku leeyahay dad baa hurda wallahi alcadiim dad baa hurda subxii dad baa hurda war imma saaqaadka aajidad qadinto caruurtooda iyo magaranaysa aan is arkaynin caruurtooda markaan qofka qaadka cun caruurtiisa lama kulmo xaaskiisa lama kulmo habeenku imaanaya waqti dambe uu seexanaya caruurtii wax baray wax laga yaabo in malcamadi tagto nin baa hadda kor waxaa la ii sheegay maalin baa qaadka la joojiyay dabadeetana ilmihiisi baa la kala baray baa la subx ilaahay baan kugu dhaarshay qaadka dhibaatadu leeyahay ka mid ilmihiisi baa la baray waxaa la kan adaa dhalay oo goorme de waa kii cid ugu yaraayo intaad qayilaysi u dhashay war kan maxaa war waa kan ma ifadadii war dadka qaadka cun u fiirsan xitaa dhibaatada ugu badan dadka qaadka ugu leeyahay waa raganimo xumo xaaskaaga haddii xitaa awoodii raganimo aad ku qancin lahayd ila gurigeeda bariiska may weynin walaal ay weyso xaqiiq waxaa ah in mararka qaar ay markaa gabadhu dhibaato iyo ama qaladaad ku dhici karaysa suurtagal walaalayaal gabadhaada ka fikir xaaskaaga ka fikir oo ka fikir magara sumcadaada oo ka fikir dhaqaalahaaga oo ka fikir caafimaadkaaga oo ka fikir sumcadaada intaba qaad ku baabi'inaya hadda ku sheegay walaalayaal ninkaagan qaadka cunayo intaan cunana waa maasantahay ilaahay idiima gaarsiiyo barnaamijkeena maanta waxaan ugu talagalnay ka hadlida qaadka walaalayaal inta wanaagga jecel dadku waxay leeyihiin video adigu wanaagga ka hadashaa videoga daawashadiisa wuu yaraanaya aniga inta daawatay boqolka qof ee muxsiniinta wanaagga ayaa iga badan wallahi alcadiim waa faraxsanaa inta wanaagsan ayaa i daawanaysa inta xumaha jecel waxay daawataa wanuga heesaha iyo waxyaabo baranki la sameeyey qaawnaan something like that no aniga maxaa iga badan boqolka qof ee ilaahay taqaana iyo rasuulkiisa haddii aad taqaano igu filan intaa iyada ah intaasaan rabnaa inaan ka gudbino su-aal meesha taagan baa jirta dadka qaadka cuna salaadooda culimadana weydiiye walaalkayo waa sidee ma la aqbalaya intay qaadka jirka maandooriyo jirkooda ku jiro maxay tahay xiriirka ka dhexeeya qaadka iyo magaranaysaa iyo caafimaad darrada bulshada dhibaato fara badan baa ka hayso qaadka wuxuu keenaa dhimasho degdeg ah qaadka wuxuu keenaya dhaqaale yari qofka qaadka cuna u fiirsa inta badan waa faqiir waxba meel ma dhigmaan ilmihiisa ma kafaal garayn karo xaaskiisa ma kafaal garayn karo marka maxay tahay waxa aan qaadka maanta qiil ugu samaynayno intii hore u joojisay ilaahay baa ka hadhoobiyey inta kale ee aan hadda cuntaan ilaahay baan u baryaynaa ilaah ummaddeena qaadka ka qabo si ay dantooda u garato ilaah ummaddeena qaadka ka jooji si ay u fahanto nolosha qiimaheeda ilaah qaadka ummaddeena ka jooji si ay u fahanto yacni wadanimadooda iyo dhul jacaylkooda qofka marka maskaxdiisa alerta taa soo jeeda ayuu fahmaya qof qayliyo maqan u jiifa horta muxuu markaa walaal isha uu soo jeesi karaa may sababta keentay in dalkeena faraha gacanta lala galo waa sababta keentay in gumaysiina lagu sameeyo sababta keentay waxyaabo xun in noola soo dhaweeyo cid ka hadashay sababta inay jiraan qaad baan ku mashquulsan markaad weydiiso Soomaalidii wadadooda qiila lagu leeyahay dumarka markii la garo wada fadhiistaa oo Soomaalida ka hadlayna marka dad badan oo waalan baa jiro qaadka u waalo وما سنتين هذا الكهدي الذي كل ري رالي هذا وولالكينا عبد القادر محمد عبد الرحمن دكتور شخاوالدين ودباتوين كخاتك كهذي ضد بدن أو صعصي وذيد بالبرنامج كمان تقعدني فضلنا فكر كاجي وحد بهانتها يدود هذا حاصل نورة هنقول قف حاسدة هنقول قف
magaranaysa bakhiila bakhiilku waa qofka asoo inta ku daawada ka taga waana subscribe noo sartay like iyo share comment tahay waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo insha Allah qiimo leh iyo salaamu calaykum